universal oo markasta diyaar u ah horumarinta bulshada Soomaaliyeed waxaan kaloo mahad weyn u celinayaa Furqaan Travel oo hogaamiyo Mr. Cabdiweli oo ina yar oo dhalinyaro ah oo isaguna isu taagay ummadda Soomaaliyeed inuu khidmeeyo isaga iyo bahda la shaqeyso oo dhanna mahad baan u celinayaa waxaan aad iyo aad maanta ugu faraxsanahay inaan warbaahinta wixii aan soo maray in yar aan dul maro waxay ahayd markii ugu horeysay oo xaj iyo cumro aan ka aado waddankan UK gaar ahaan Birmingham waxaan anoo aad iyo aad baqdin weyn qabay oo dadku yiraahdaan xajku waa dhib badan yahay ayaan sidii aad iyo aad baan waxaan ogaaday bal la sheegay Cabdiweli inuu yahay sanadkii hore 2012 dadkii xajkii uu geeyay baa iga warramay sidaa darteed baan u doortay markaan arkay isagana waxa ay muuqda in yara oo dhalinyaraas aan waqtin say isugu aamintaa mar alla maalintii ugu horeysay halkaan ka baxnay oo aan baskii koowaad raacnay yaa waxaan dareemay nin mas'uul ah inuu yahay noloshii halka aan baska ka bilownay marka wax yar markaan halkaad aan ka iftiimiyo baska markaan fuulay wax walba aan u baahnayn baa naloo dhigay waxaan aad iyo aad ugu bogay aad iyo aad sida bulshada ugu khidmaynayo sida ugu dhex jiro kan buka iyo kan waayeelka iyo kan beeshinkaas uu gacanta u hayo sida markaan tagnay halka basaskii baa diyaar noogu ahaa jidka markaan sii marinay basaska wax walba diyaar noogu ahaa hotel jidka ku jiray qada aad u qiimo badan naga siiyay hotelka markuu na dejiyay Madiina oo na dejiyay 5 star oo 200 oo tilaabo u jida magaalada isaga aad iyo aad wuxuu dadka kaga duwan yahay meel walba hoteladu waa hore ayuu dadka u diyaariyaa hotelkaas oo 5 star ah oo 200 oo tilaabo u jida oo 5 salaadood aad masaajidkii nabiga kaleey salaatu wasalaam aad ku tukanaysid markaanu halkaas ku raaxaysanay muddo 7 casha ayaanu ka soo bixinay xajkii ma ka soo aadnay makana waxaana la dejiyay Kaabada hotelka dushiisa ah oo isaguna 5 star oo isagana wax walba u dhayihiin kaasana la dejiyay marka masaajid hotelkan deganahay hoosna wax walba oo cuntadiya noo taal masaajidka hadaan salaadii u baahanana salaadii bartan ku tukan karnaa hadii kale masaajidkii baan ku tukan karnaa Kaabadii hadii kale masaajidka hooseeyaan ku tukan karnaa arintaas waxay arin aad iyo aad raali galisay marka Cabdiweli agency waxaan ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda Islaamkaaba aan ku baraarujinayaa qofkii rag badanna waan u sheegay qofkii doonaya inuu soo xajiyo jaaniskaas ha ka faa'iideysto waa nin dhalinyaro ah oo aad iyo aad u dul badan oo aad iyo aad u qiimo badan waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa runtii aan aad ugu qancay adeega hufan ee fiican ee xurmada leh sharafta leh karaamada leh shaqada wanaagsan ah ee ay u hayaan dadka haba ka shaqaysteen laakiin waxa weeye adeeg fiican oo runtii aan is oran karo waxa ay ka qaadanayaan uuba ka badan yahay adeegaasaaba ka badan dhan walbaba hadday xurmo tahay hadday shaqo tahay iyo hadday hufnaan tahayba aad baan anigu marka ugu mahad celinayaa aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa qorshahana iguma jirto inaan meel kale agency aan tago inta Furqaan Travel Agency ay furan tahay waxaan rajaynayaa insha Allah tigida kale badan ka goosto sanadaha soo socda waxa laga yaabaa inaan xajka insha Allah waan aado qorshaha marka aniga iguma jirto markaan hadalkayga soo ururiyo inaan meel kale oo agency aan tigid ka goosto xataa waxa dhacay sanadkii hore tigidkaygu inuu dhacay 3 sano xilligii 3 bilood xilligii aan qaatay waxaan leeyahay 1 year meelaha soo ahaa adigu oo dhow 3 bilood ka bacdi ayay waxa ii suurta gashay inaan ku soo safro tigid dhacay iyaga suurta galiyay wax yar baa oo waxa laga qaaday charge marka runtii waxaan oran karaa aad iyo aad baan aniga iyo bulshada ugu qanacnay waana mahad celinayaa waxaan kula talinayaa dadka aniga ila midka ama bulsho weynta Soomaaliyeed in ay la macaamilaan wixii tigida ay u baahdaana ay ka goostaan aad iyo aad baan ugu celinayaa hamoogaanina Furqaan Travel Agency aniguna ma ilaawi doono haddii alla yiraahdo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.